بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم dhammaantiin ba kusoo dhawaada videogan aan kaga hadli doono isbedelkii weynaa ku yimi shahaadooyinka Cisco. Alright, shahaadooyinka Cisco maxay ahaayeen haddii ay isweydiinaysaan? Cisco little bit information yaro degdega sida flyby waa company Mareykanka ku yaal asalkiisu markay timaado networking routing iyo switches waa king waa libaaxa markay timaado networking ee soo saara qalabka routka iyo switchka. markii hore hardware company buu ahaa, imkana software company bay u dhaahdaan banahay oo waxay soo saareen operating systemka ka shaqaysiiyeen network deviceska sida loo yaqaano iOS, Internet Operating System. iOS ki Apple maaha telefoonada waa kan Cisco capital I capital O capital S iOS way. Software company baan nahay bay sheegaan. dabeetana waxay sameeyaan product walba ay soo saaraan waxa la socda tababar ay dadka ku tababaraan, dabeetana certification ba bixiyaan. certificationkaas wuxuu sheegayaa inuu qofkani aqoontan u bartay. Alright, aqoontan inuu qofkani bartay ee certificate-kani ay cadeynaysaa. dabeetana 1993 bay soo introduce gareeyeen shahaadada loo yaqaan CCIE oo ah Cisco Certified Internet Network Expert. يعني وريانا دكو دالين وقف PhD كسيته Cisco. اوكي اسبدل كان هالطبق هلا وحا ودعاي هوينا كون سقال بقول عفوا لو كني سقال طبعا كي جون طبعا كيديس in Cisco Life وحا الله صو بندقي in اسبدل وين كوي من يشاهدون كي Cisco massive change. هذا الفيديو كان كاكو حيقا يكا صدحات بهدي الله نفتو نغو سمو وحو نغون دونا سيدا سو صعطا. فيديو غان waxaad ku qaadan doontaan overview, high level overview dusha saran ka soo eegina isbedelka dhacay. Videoga labaad khaasatan wuxuu noqon doonaa isbedelkii ku yimi associate levelka oo in detail aan dhex geli doono. Videoga saddexaadna wuxuu noqon doonaa the professional level. So let's start the first one. halkan waxaad ku arkaysaan, let me make it good here. Alright, dhowr qodob baan ku hayaa halkan aan doonayaa kaga hadlo videogan. isbedelka koobaad ee ku yimi ay isbedelka sameeyeen waxa uu la yaabka badnaa wuxuu ahaa in CCNA-yadii faraha badnaa laga soo reebo hal xabo. ilaa waxaan filayaa haddaan qaldaneen 11 CCNA baa jira oo kala duwan. qofka doonaya security barto CCNA security waana meesha ugu horeysa laga bilaabayo. marka laga yimaado CCENT entry levelka toos baa loo bilaabi jiray. associate levelkan waa Cisco Certified Network Associate, يعني قف junior يعني أقونتاس لوية. Let's say the bachelor degree of our academia. قف bachelor degree كدوني إنه Cisco كقاطع لكن CCNA كلو ديارنا. Alright. واحد جرى CCNA industrial, CCNA collaboration, CCNA cloud, CCNA cyber ops, CCNA security, CCNA router switch, CCDA or design key, CCNA wireless, industrial يا وحي لها المعلا. كوبيتون بان فيلي هتانا قلدانين waxaa laga soo reebay only one CCNA hal xaba laga soo reebay. يعني aqoonta kala duwan ee faraha badnaa ee CCNA oo dhan haysay waxaa la isku soo biyashubay only one CCNA. wow, qofkii shahaadooyinkii CCNA-da markii hore urursan jiray halka dhibaato kaga imanaysa inkastoo Cisco leeyahay patches baa la siinay. مثلا anigu waxaan siitay CCNA router switch iyo CCNA security. CCNA router iyo switch automatically waxay isku bedelaysaa the new one CCNA da cusub. CCNA security waxay laakiin isku bedelaysaa patch baa la siinaya la leeyahay ninkan waa Cisco certified security CCNA certified, laakiin patchkaas wuxuu noqon doonaa in ku ekaan doono Allahu a'lam wax wara laga mahayo. Cisco kale patch bay tiri waa lagu siinayaa. migration tool baa jira مثلا ku tusaysan isbedelkan uu sameynayo. later on baan ku arki doonaa videoga kale insha Allah. qodobka labaad CCNB in 2 exams only. CCNB-yadii waxay ahaayeen haddaan qaldaneen 7 CCNB waxaa laga soo reebay 5 ayadana detail waxaan u dhexgeli doonaa videoga saddexaad marka kaga hadlayno doono professional levelka. imka xoogaa yar aan ka bixino information. CCNB in 2 exams يعني way kala duwanayeen. router switch security tusaale ahaan soo qaato
CCNP route iyo switch waxay ka koobnaa 3 imtixaan saddexda imtixaan markaad baasid baad noqonaysaa CCNP route and switch certified security isna wuxuu ahaa 4 imtixaan markaad baasid baad noqonaysaa CCNP security certified warkaasoo dhan waa la joojiyey waxaa la yidhi 2 imtixaan ha laga soo reebo wow that's so good waayahay maxaa dhacay in labada imtixaan laba loo kala qaybiyo mid la yidhaahdo core knowledge midna waa concentration ama specialist si kala hadan u dhigno corekaas waa maxay wuxuu ka hadlay مثلا CCNP enterprise aan soo qabto oo la say CCNP security aan soo qabto okay 4 imtixaan buu soo maaha 4 imtixaan hore xabad core laga soo qaaday iyo 6 ama 5 imtixaan kala duwan aad mid ahaanad ka dooranaysid labadaas oo baasid baad noqonaysaa CCNP security certified core-kana markaa uu yara ballaadnaan doonaa ee waxaa la doonayaa each individual knowledge inaad wax ka haysid core-kuna faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mid ah lagu soo daray CCIE isaguna wuxuu ka koobnaan jiray 2 imtixaan labada imtixaanna waxaa loo yaqaanay qualification ama written exam iyo mid practical oo ilaa 8 saacadood ah kaaritankana 3 saacadood meelahaas approximately labada imtixaanood baasid baad noqonaysaa fully CCIE imka kaliya waxaa laga doonayaa haddii aad haysatid CCNP core uma baahnid inaad writtenka ama qualification examka aad gashid toos baad u geli kartaa CCIE lab for example CCNP security core kii baad baastay CCIE labkiisun baad gelaysaa haddaad labkaas 8 saacadood baasid waxaad noqonaysaa CCIE in security and CCNP core specialist exam concentration ka dad ku dartina CCNP security CCIE security wadonaysa that's so cool intaas aad u fiicantay waayay in detail waxaan ugu tagi doonaa videoga saddexaad soo waan ka gudbaya qodobka saddexaad wuxuu leeyahay no prerequisites anymore wax prerequisite haba yaraatee ma jirto prerequisite maxaa laga baahnaa CCNP oo kale marka doonaysid in la diyaarisid route switch waqti xaadirkan aan joogno waa inaad haysataa CCNA in route and switch haddii aanad shahaadada CCNA aanad haysan ma geli kartid imtixaanaadka CCNP sidaas lag CCNP security baad doonaysa haddii aanad haysan CCNA security ma geli kartid waxaasoo dhan waa laga tagay waxaa la yidhi qofka doonaya CCNA inuu diyaariyo toos buu geli karaa qofka doonaya CCNP inuu bilaabo toos buu geli karaa CCIE markii hore prerequisite ma baahneen isna toos baad u geli kartaa saddexda levelba prerequisite lagagama baahna aqoontoodi waa loo baahan yahay laakiin shahaadadu must maaha okay qodobkan kale wuxuu ku leeyahay network engineers plus software developers baa wada shaqaynaya oo halkaas intan hore dhan waa network engineers baa markaa meesha yaacayay hadda waxa lagu soo biiray niman software developers oo maxay naga soo dooneen on arki doona waxay naga soo dooneen adduunka automation programmability SDN waxyaalahaas uu wareegaya uu socda dabeetana ninkii network engineer-ka ahaa ee khabiir ku ahaa CLI command line interface-ka waxaa loo baahan yahay inuu ku soo daro xirfad cusub oo loo yaqaano software skills developer inaad noqotid fully functional developer oo wax website caalamiya sameynaya ma application caalamiya sameynaya looma baahna kaliya waxa loo baahan yahay shaqadii aad qabanaysaa network as a network engineer toolska aad isticmaashid ee software developers ku isticmaalaan ee hawsha ku fudaydinaya degdegna aad shaqadii aad u qabanaysid marka halkaas waxay ku soo kordhiyeen certification path cusub oo loo yaqaano DevNet isaga waxaan isku dayi doonaa haddii alla ka dhigatay suuragal noqoto in video gooniya ka sameeyo aan liiska ku soo darsado videoiska soo socda aan kaga hadli doono DevNet in a nutshell waxa weeyaan waa automation iyo programmability baa qofka la baraya configuration kaad ku sameynaysid OSPF routing protocol oo kale saad ugu sameyn lahayd automation مثلا using مثلا for example Python marka certification baa soo saareen DevNet la yiraahdo oo associate level leh iyo professional level leh okay fine I'll make a separate video about DevNet cool halkaan kaga tago waxay soo saareen kale certification cusub ama level cusub oo loo yaqaan specialist waxa jiray associate level professional level expert level bahayn marka waxa noqotay associate specialist professional
iyo expert level. Specialist kan muxuu kaa caawinaya shahaadooyinkan CCNB-yada kala duwan shahaadooyin markaad qaadatid matala mid CCNB security less aan soo qaadano firepower-kooda kala khabiir ku noqotay waxa lagu siinaya shahaado specialist oo firepower-kaasoo kala yaata inaad khabiir ku tahay ka waramaysa marka waxaa laga yaabaa CCNB-daas inaad laba shahaadaad haysatid mid CCNB security certified iyo mid lagu dhahdo specialist waxaad ku tahay firepower or firewallka ASA firewallka ama ICE baad ku tahay specialist marka waa level cusub shahaado cusubna leh waxay ku soo kordhiyeen recertification credits marka doonaysa inaad recertification ama recertify inaad noqotid dib aad shahaadada u heshid intaanay ka expire garoobin waxaad samayn kartaa matala imtixaankina dib u gashid ama levelka ka sare ka samaysid iyo continue education wax la yiraahdo CE oo dhibca laga rabo ama inaad 10 dhigtid ama seminar ka qayb gashid ama buugaaga qortid dabeetana dhibcaad ku qorsatid dhibcahaas markay ku gaadho qadar gooniye mid walba dhibca gooniye leedahay dabeetana automatically waxay ka dhigaysaa recertified warkan oo dhan aad arkaysaan wuxuu noqonayaa valid when wuxuu noqonayaa let's see wuxuu noqonayaa February 24-keeda 2020 almost 8 months later 8 bilood ka bacdi bay shahaadadani ay noqon doontaa mid valid oo shaqeynaysa imka dadka diyaarinaya CCNA imtixaankoodii ama CCNB waxa uu wanaagsan intaas waa my own opinion waxa uu wanaagsan inay hadda iska sii diyaariyaan intaan shahaadada cusub loo taagin haddii CCNB 3 exam diyaarinaysay do it dhammaystir CCNB certified noqo automatically enterprise baa lagu wareejin doonaa CCNA haddii aad wadid router switch dhammaystir laakiin wixii CCNA kale aad wadid oo dhan completely jooji dad CCNA wireless aad wadid CCNA cyber ops CCNA security CCNA data center collaboration waxaas CCNA kale oo dhan jooji hal mid diyaari CCNA router switch intaan la gaadhin February 23-2020 shahaadada qaado automatically kan cusub ba migration lagu sameeynaya dabeetana material kan cusub waad ka badbaadaysaa wali aan diyaar ka ahayn warkan oo dhan xagad ka helaysan haddaba let's go to our browser waxaad soo furtaa browserka waxaad ku qortaa cisco.com/next level markaad halkaa ku qortid waxaa ku soo baxaya isbedelkii faraha badnaa ee ku yimi shahaadooyinka hoos u soo daadeg CCNA specialist CCNB CCIE halkan oo ku definite and few all certifications kan ku dhufto eetana halkan aan ku aragno hoos u soo daadeg yes halkan ku arkaysaan entry levelka CCENT is gone waa ka baxday meesha CCT Cisco certified technician associate level ka CCNA definite ka sano dambeeyo professional level ka waxa laga soo rabay enterprise collaboration data center security service provider todoba hayeen halka waxa ku jira wireless ki design ki iyo router switch ki baa isku soo geeyay waxa loo baahayay enterprise expert level ka CCDE way jirta router switch ki waa ka soo enterprise baa la sheegay lagu bedelay iyo wireless collaboration data center security service provider in that switch qaybtan waxa kaga hadlayaan waa maxay waa definitely cisco.com next level ayaad intaa ku arkaysaan haddii aan ku dhufto CCNA associate level kaas let's see what happened here arkaysan waxaa soo CCNA cloud collaboration cyber ops data center DA industrial router switch security service provider wireless waxaasoo dhan waxaa lagu replace garay lagu bedelay this guy implementing and administrating Cisco solution is CCNA video kale baan kaga hadli doonaa CCNA-dan iyo isbedelka faraha badan ku yimi okay marka almost videogan intaasuu ku dhammaystiran yahay waa overview dabeetana waxaan in depth waxaanu si dhigel doonaa haddii alla ka dhigo CCNA-dan CCNB finally definite kaasna ugu dambeyn doona waan ka duubi doonaa haddii alla ka dhigo waxaa idin soo diyaariyay anigoo Axmed Diiriya assalaamu calaykum aad baad mahadsantihiin